maskaxda kugu taal oo dareemayaasha kugu yaalliin haddii khalal kale jidhka uu kaaga jiro waxaa la arkaa inaanu macaankaasi macaankiisii rasmiga ahaa dhadhan sababta keenta inaanu u dhaminna ma aha carabkaan carabkii ahayn ma aha carabka wixii wax dhadhamin jiraa ku oolin ma aha maskaxdii ka jawaabi jirtaa ku oolin laakiin waa khalal dheeraadaa jira matalan qofku markuu xanuunsado afku baaba ku badhaadhaada wixii macaanaayoo dhan markaad dhadhamiso macaan dhadhami maaya jidhkiina wax badan iskama bedelay laakiin waxa isbedelay waa maxay waa shay zaa'ida kugu soo korto cibaadadu waa sidoo kale bay leedahay macaan bay leedahay uu dhadhamiyo qof laakiin macaanka kan waxaa inta badan dhadhamisa ruuxda qof insaanku waa laba qaybood waa qolof jidh ah iyo ruux ku jirta ruuxdaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qul iruuxu min amri rabbi yani ruuxdu inay ka mid tahay ilaahay subxaana watacaala arrintiisa aan cidi waxba ka garanay laakiin waxyiga uu alla soo dejiyey subxaana watacaala waa ghadaa'i ruux ruuxda tan wixii dhadhanka iyo macaanka u yeelayey waa waxyiga way kobocdaa oo way barwaaqowdaa waanay liidan kartaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan markaasi wuxuu leeyahay saddex qofka ku jira wuxuu helay iimaanka macaanki iyo dhadhankiisa saddexda tani waa maxay an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaa ilaah iyo rasuulkiisa in wax kasta lagaga jacayl badan yahay inuu dadka u jecel yahay ilaahay dartiisu